رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة. safarkii samada. waxaad tahay saxaabiyad, waa kan nebigaaga iyo midkii aad jeclayd, isaga oo ka soo laabtay safarkiisii samada. adeeg iyo saxaabadana aad si wadajir u wada fadhisaan, adinka oo sugayo una diyaarsan inaad maqashaan cajaa'ibta uu nebigeena ku soo arkay micraajka. nebigana isaga oo ka warramayo arrinkaas ayaa waxa uu yidhi, markii la gaaray habeenkii dheelmintayda waxaa ii timid caraf aad u cudoon. jibriil ayaan ku idhi, maxay tahay caraftaan? isagana wuxuu ii yidhi, waa udgoonkaaga imaanayo marwadii timaha u shanlayn jirtay gabadha fircoon. markaas ayaan ku idhi, yay tahay gabadhaas? isagana wuxuu ii yidhi, maalin ayaa iyada oo timaha u shanlaynayso gabadha fircoon ayaa waxaa ka dhacday shalnadii. markaas waxay tidhi bismillaah. gabadhii fircoon ayaa waxay tidhi markaas, ma aabbahay? waxay ku tidhi markaas, aabbaha ma ahan rabbigayga, ee rabbigayga iyo rabbiga aabbahaaba waa allah. gabadhii fircoon ayaa waxay tidhi, ma u sheegaa arrinkaas? marwadiina waxay ku tidhi haa. fircoon ayaa markii loo sheegay arrinka wuxuu u wacay naagtii, wuxuuna ku yidhi, ma waxaad leedahay rabbi aan aniga ahayn? waxay ku tidhi haa, rabbigayga iyo rabbigaagaba waa allah. fircoon ayaa markaas wuxuu amray in la kariyo saliid, iyada iyo carruurteedana lagu rido halkaas. waxay ku tidhi markaas, hal arrin ii sameey. wuxuu ku yidhi maxaa waaye? waxay tidhi, waxaan jeclahay lafahayga iyo lafaha carruurtaydaba inaad nagu xirto hal maro, aadna nagu aasto hal meel. wuxuu yidhi fircoon, taasi waa xaqa aad nagu leedahay. marwadii muslimadda ahayd iyada oo taagan ayaa carruurteedii mid mid loogu riday saliidda. markaasna waxaa la soo gaaray cunug yar oo naas ay nuujinaysay. markaas cunugeeda yar ayaa u baqday, balse cunugeeda ayaa waxa uu ku yidhi, hooyo isku tuur, cadaabka adduunka ayaa ka dhib yar cadaabka aakhire. ma aragtaa wuxuu iimaanka ku samaynayo qalbiga? ma aragtaa siduu qofka uga dhigayo buur adag oo aan rabbi mooye cid kale u rukuucaynin? marka loo fiiriyo kumanaanka kale ee shaqaalaha ah, iyada shaqadeedu waxay ahayd timaha inay shanlayso oo keliya. fircoonna wuxuu ahaa boqor kibray oo xadgudbay, raggana ay ka baqi jireen, isagoo dadka dhagahooda ku akhrin jiray inuu yahay rabbigood. ma jirin qof u sheegayay markaas been abuurkiisa iyo gaalnimadiisa. wuxuu boqorka ahaa markaas waddan dhan oo isaga u hoggaansan cabsi ay ka qabeen awgeed, balse iimaanka ayaa beddelay waxaasoo dhan. adeegto yar oo aan lahayn wax awood ah ayaa waxay ka hor timid boqor dulmi badan oo sheegtay ilaahnimo. marwadaas geesiyadda ah si deganaan ah ayay u istaagtay meel ay ka baqi jireen ragga. fircoon ayay ku tidhi hadal uusan weligiis horay u maqlin, rabbigayga iyo rabbigaagaba waa allah. ciidankii fircoonna iyaga oo dhan waxay noqdeen kuwo aan waxba tarin. haybaddii iyo awooddii uu sheegan jiray fircoonna waxay noqotay waxba kama jiraan. naagtii timaha u shanlayn jirtay gabadhiisa ayaa waxay siisay cashir ku saabsan tawxiidka, isagoo dulaysan, rabbigayga iyo rabbigaagaba waa allah. haddii uusan iimaanka ahaan lahayn, marwadaas qisadeeda ma aynan maqli lahayn. taariikhdana way ka tirmi lahayd sida uga tirmeen dad badan oo la mid ah iyada. laakiinse iimaanka ayaa ah ciidanka alle midka ugu xooggan haddii uu qalbiga dego. iimaanka ayaa ku noqonaysaa buur si kastoo ay kaaga badato dumarnimada. iimaanka ayaa ku noqonaysaa ciidan xitaa haddii aad tahay keligaa. inta iimaanka uu kula jiro ma jiro adduunkani wax ku jebin karo, sababtoo ah isaga ayaa ah hubkaaga awoodda badan iyo seeftaada afka badanba. xilliyada qaar waxaa ku soo marayo xanuuno sida bani'aadamka kale u soo maraba, balse dadkaasi xanuunku wuxuu ka dhigayaa kuwo aan raalli ku ahayn qadarka alle, halka adigana aad leedahay markaas rabbi ayaa i soo fiiriyey, markaas ayuu i jeclaaday. wuxuu doonay markaas inuu kor u qaado booskayga jannada, markaasna wuxuu ii soo diray xanuunkan. alle ayaan ku dhaartay xanuunow, igama helaysid wax aan ka ahayn sabar iyo mahadcelin. kama fadli badni nebi ayuub calayhi salaam
markuu imtixaamay rabbigiis. Sidoo kale kama khayr badni nebigayga iyo xabiibkayga Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo madaxiisa biyaha lagu shubayay markii ay ka tambadisay qandhadii sakaraadka. Xasuusnow xanuunow, kuma aadan imaan rabitaankaaga, sidoo kalena kuma tegaysid rabitaankaaga. Maamulkoo dhan Alle ayaa iska leh. Haddaa ila joogtana igama helaysid wax aan sabar ahayn, haddii aad tagtana igama helaysid wax aan mahadcelin ahayn. Waxaan ahay addoontii Alle, isaga ayaa ileh, amarkiisa ayaan u hogaansamayaa. Wax walba u qadarana waa khayr. Saxaabiyaday, adduunyadan noloma abuurin ee waxaan ku nahay safar. Guryaheena dhabta ah waxay jiraan jannada, halkaasoo ay markii horeba deganaayeen aabbaheen Aadam iyo hooyadan Xaawo. Qofkii yaqaano waxa uu raadinayo waxaa sahal u noqonayo waxa uu qabanayo. Qofkii yaqaano waxa uu raadinayo waxaa sahal u noqonayo waxa uu qabanayo.